dhulka aynu ku noolnahay waxaa ka buuxa sir badan oo bani'aadamka waxba uusan ka ogayn. Xitaa waxyaabahani sida nolosheenni ay uga midka yihiin badankeennu waynu xifdisannahay, laakiin inta fahamsan oo su'aal iska weydiisaa aad ay u yar yihiin. Awoodda xufisjiidadka qof walba ee nool, xitaa xayawaanada, waxa ay maanta yaqaaniin shay haddii kor laga soo tuuro in dhulka uu ku soo dhacayo. Waxyaabaha culculusna si degdeg ah ayay ku soo dhacaan, waxyaabaha khafiifka ahna sida bacda, caleenta iyo waxyaabaha la midkaa si tartiib ah ayay u soo dhacaan. Qof walba sida uu xifdisan yahay mas'aladani, haddii la isku dayi lahaa mas'aladani in xisaabaad loo beddelo, fahamka adduunka aynu ka haysana koonka oo dhan ayaa isbeddeli lahaa. Haddii aad waddada qaadda maanta, qof walba isaga oo aanan ogayn sababta ayuu iska rumaysan yahay in dhulka wixii kor loogu soo tuuro inay soo dhacayaan bilaa sabab. Muuqaalkani waxaad ku arki doontaa taariikhda xufisjiidadka, sida lagu helay iyo qaabka uu aragtida adduunka aynu ka haysanay isbeddel ugu dhacay marka xufisjiidadka aynu fahamnay. qof walba marka mas'aladani sabab la'aan uu isku dhiibay, ninkii ugu horay ee ka hor imaadaa waxa uu ahaa Galileo. Waxa uuna ka mid ahaa dadka sida aadka u doondoonaya Galileo in ay fahmaan habka koonku u shaqeeyo. Galileo xilligiisii teleskoob aad u yar ayaa waxa uu ku fiiriyay cirka, waxa uuna noqday ninkii ugu horay ee teleskoob ku arkaa meeraha Jupiter, Mars iyo Saturn. waaba sababtay xitaa meerayaashani maanta loo dhaho meerayaasha Galileo. Galileo marka meerayaashani si waadax ah teleskoobkiisii ugu arkay aad ayuu ula yaabay. Meel cidlaah ayay meerayaashu taagan yihiin sida kubad oo kale ah, dhulka ama meel hoosena kuma ay soo dhacayaan, mana ay jirta meel ay ku taagan yihiin meerayaasha. Galileo fahamka meerayaasha ka sokow fikrad kale oo la yaab leh oo ka hor imaanaysa wixii boqolaal sano dadka su'aal aysan iska weydiin, maxay wax walba marka kor loo tuuro dhulka ay ugu soo dhacaan, ayuu bilaabay inta noloshiisii ka dhiman in su'aalahani xalintoodii uu isku mashquuliyo. Sababtoo ah meerayaasha iyaga oo meelna aanan ku tiirsanayn ayay meel dhex taagan yihiin. Tanina waxa ay sabab u noqotay in dhulka uu ku mashquulo waxyaabaha boqolaal sano su'aal aanan la iska weydiin. Waxa uuna bilaabay in boqolaal shay uu soo qaada Galileo, kadibna kor inta uu u tuuro ayuu fiirinayay qaabka dhulka shayga uu ugu dhacayo. Kolkani hadafkiisu waxa uu ahaa in sababta uu ogaado. wax walba sida biraha, dhagxaanta, geedaha, nooc walba tijaabo ayuu ku sameynayay. waxa uuna dareemay ugu dambeyn in hawada shayga saameyn ay ku leedahay. yacni shayga marka kor loo tuuro waxa uu ku fikiray qadarka xawaaraha soo dhicitaankiisa, qayb ka mid ah in hawadana sabab ay u tahay. si uu u soo yareeyay hawada, waxa uu kolkani bilaabay Galileo in waxyaabaha uu soo tuuray inuu u soo tuuro hab aanan toosnayn. waxa uu sameeyay meel dalcad oo kala saddex geesood oo kale u samaysan, waayo hawada habkay u socoto hab ka duwan oo geometrical ah ayuu doonayay in waxyaabahan uu ku fiiriyo haddii xawaaraha dhicitaankoodii uu soo yaraanayo. Galileo yacni waxa uu doonayay shakigani ku dhashtay in hawada shayga marka la soo tuuray in xawaarihiisii hawada saameyn ay ku leedahay ama in kale inuu ka aamin noqdo ayuu doonayay. kadibna wax sida kubad oo kale u samaysan ayuu dalcadda ka soo tuuray. ilbiriqsigii koowaad shayga uu soo tuuray waxa uu jaray 1 mitir, ilbiriqsigii labaadna waxa uu jaray 4 mitir, ilbiriqsigii saddexaadna 9 mitir ayuu shaygaa jaray. Galileo aad ayuu ula yaabay. noocyo kala duwan oo ashyaa ah ayuu bilaabay in dalcadda uu ka soo tuuro. waxa uuna arkay in dhammaantoodii isku mid ay wada yihiin, waxaana u soo baxday ugu dambeyn Galileo natiijo ah walxuhu maaskoodii in aysan saameyn ku lahayn heerka dhicitaanka xawaarahoodii. yacni wuxuu ula jeedaa shay walba culayskiisii inta uu la eg yahay, ha ahaaday shayga shay culus ama shayga ha ahaada shay khafiifa, xawaaraha shaygaasi uu dhulka uu ku soo dhacayo waa kuwa mar walba isku mid ah. tanina taariikhda bani'aadamku waxa ay noqon doontaa qaladkii ugu horay ee la sameeyey. xitaa Maraykanka marka uu dayaxa Ebola uu ku tagay, Galileo natiijadiisii ayaa la sheegaa in halkaasi lagu tijaabiyey. meel aanan hawo ka jirin dayaxa dushiisii ayaa laba shay, mid bira iyo shay suuf ah, ayaa hal mar la isku dayay in la tuuro. masaafo isku wada mid ah ayaana laga soo tuuray, waxaana la sheegaa isku waqti in dhulka ay ku dhaceen. si kastoo tani tajribada iyo fahamkeenii maanta ay uga hor imaanaysa in shay culus iyo shay khafiif ay noqdaan kuwa hal mar isla soo wada dhacayo, waa wax runtii qofka practical
ogaalka ka hor inuu ka fakar aad u adag. Galileo isaga oo mas'aladani xalinteedii ku mashquulsan ayaa haddana waxa uu Jupiter hareerihiisii uu ku arkay waxyaabo binqaya oo haddana la weynayo. Tijaabooyin bilooyin socday kadib waxa uu ogaaday ugu dambeyn in waxyaabahaasi xawaaro zaa'id ah Jupiter hareerihiisii wax ku socday inay yihiin. Galileo hortiisii xitaa dadku waxay ogaayeen in meerayaashu ay socdaan, marnaba meerayaasha socodkoodii dadka shaki kama uusan gelin. Galileo marka uu si aad ah u baaray habkay u wareegtaan meerayaasha waxaa ku dhalatay fikrad cajiib ah. Waxa uuna dhahay dhulka yacni adduunka aynu ku noolnahay waxa uu ku yaalaa santarka, wax walbana adduunka hareerihiisii ayay ku socdaan, yacni meerayaasha qoraxda wax walba adduunka ayaa dhexda ku jiro, kadibna shay walba adduunka hareerihiisii ayuu ku socdaa. Fikrad ah ayuu soo bandhigay. Fikirkani Galileo marka uu soo bandhigay wadaadada kaniisadda ayaa afarta dhinac bilaabeen in ay qayliyaan. Galileo waxay u arkeen nin dadka fasahaad ku dhex wado maadaama arrimaha cirkii adduunka uu ka hadlayo. Kaniisadda xukunka murtadka qof fallaagoobay oo fitna bulshada u horseedaya markay u aragtay Galileo waxaa la geliyay xabsi guri. Aqoonta xilligaasi jirtayna dadku uma aysan bislayn sida maanta. Barnaamijyadani marka la soo hadal qaada qaar yar oo cilmigoodii halkani aanan soo gaarin maantay u dhahaano oo kale, arrimahani waa arrimaha Ilaahay, ka hadalkoodiisa waa gaalnimo. awoodaha Ilaahay ayay waxyaabahani ka hadalkoodii dadka ilowsiiyaan iyo waxyaabaha la midka ah. Inta xitaa xalqooyinkani fahamka kownka aynu ku soo guda jirnay, xitaa haddii playlistiga muuqaaladani kommentiyadoodii aad akhriso Galileo xilligiisii kaniisaduhu iyo dadku sida ay u fakarayeen, dad Soomaali ah oo maanta sida u fakaray ayaa jira, inkastoo tiradoodu ay aadka u yar tahay. Galileo marka xabsi guri kaniisadda ay ku xukuntay cimrigiisii uma suurtagelinin inuu wax ka ogaado su'aalihii ka guuxay oo dhan jawaabahoodii. Isaga oo aanan helin wax jawaaba ayuu Galileo dhintay. Hal sano kadib dhimashada Galileo waxaa dhashtay Isaac Newton. 50 sano kadib isaguna waxa uu bilaabay sida Galileo oo kale in su'aalo uu isweydiiyo. Newton waxa uu ahaa qof ahludiina, yacni diinta Kiristaanka ku toosan, waxaana aad u wareeranay Newton qoraxda maalin walba dhinac ka dhalata galabtiina dhinac u dhacda. Waxa uuna rumaysnaa Newton habka ay qoraxda u socotay in la xisaabin karo. Aad ayuuna u indhaynay meerayaasha sida ay u socdaan. Tusaale, meerkuni waa meeraha ugu dhow ee qoraxda, isaga oo dhan xawaaraha wareegiisii marka la fiiriyo halkii sano waa 88 maalin, halka dhulkana 365 maalin ay ka tahay sanadkii. Yacni sanad wuxuu la jeedaa muddada meeraha hal wareeg oo dhammaystiran uu soo galo, marka dhulka intaasi 365 maalin ay ku qaadanayso inuu hal wareeg oo dhammaystiran uu soo galo. Meeraha meerkuni 88 maalin oo keliya ayay ku qaadataa. sidaas ayuuna Isaac Newton meerayaashu wareegoodii iyo sanadkoodii uu u xisaabiyay. waxaana u soo baxday natiijo cajiiba oo qof isaga kaga horay uusan arkin. waxa uuna dhahay meerayaasha mar walba oo qoraxda ay u soo dhawaadaan ama sida ay qoraxda ugu dhow yihiin marka loo fiiriyo xawaaraha wareegoodii aad ay u kala sareeyaan. yacni meerayaasha qoraxda midka u dhow ayaa ugu degdegsiimada badan wareegiisii, hadba sida isugu xigxigaan ayuu wareegoodii u soo kala gaaban yahay. natiijadanina waxa ay ku xiran doontaa wixii Galileo horaantiisii uu helay. sida bilowgiiba aan ku soo sheegnay, Galileo waxyaabaha meelaha dalcadda uu ka soo tuuray sheega halkii ilbiriqsiba marka uu 1 mitir uu jaray, marka 3 ilbiriqsi ay ka soo wareegtay sheegii 9 mitir ayuu jarayay. waxaana halkaa laga fahmay xawaaraha sheega uu ku socdo marka ka dambaysa aad ayuu u kordhayaa. adigaba maanta haddii shay kor aad u tuurto, sheegaasi marka uu dhulka si aad ah ugu soo dhawaado xawaarihiisu aad ayuu u kordhaa. Newtonna waxa uu kolkiisii arkay meerayaasha qoraxda sida ay ugu dhow yihiin in xawaarahoodiina kuwaasi zaa'id inuu yahay. isaga oo xisaabaadkani kaashane waxa uu bilaabay in dhulka iyo qoraxda xawaarahoodii inuu xisaabiyo. waxa uuna qoray formul aad basiid u ah. emta koowaad oo uu la jeedo qoraxda iyo emta labaad ee uu la jeedo dhulka haddii la isku dhufto labada oona loo qeybiyo masaafada labada ay isku jiraan, waxaa la heli karaa masaafada oo laba jibaaran awoodda iyo cadaadiska labada shay ay isku hayaan. waana formulkii ugu horey ee la hela laguna
uuna xisaabiyey laba shay oo kala duwan xawaaraha iyo culayska isku hayaan. Marka formulkani la fiiriyana waxa ay si toos ah qoraxda u saameynaysaa xawaaraha dhulka uu ku socdo, waayo dhulka xoogaha marka uu ka fog yahay marka loo fiiriyo meerayaasha dhulka ka sii shishana xawaaraha ay ku socdaan hadba qoraxda masaafaday u joogto saameyn ayay ku leedahay. qof walbana fikirkani marka uu fiiriyey macquul ayuu arkay, waxaana la bilaabay in formulkani basiidka ah ee Newton in meel walba lagu tijaabiyo. ka hor inta aanan faahfaahinta u gudagalin ka hor sheekada tilmaamaysa Isaac Newton arday iskuulka dhibsada ayuu ahaa. maalin isaga oo geed ku hansanay ayaa tufaax ku soo dhacay. waa arrin sax aanan ahayn keliya ardayda nidaam maskaxdoodii su'aal cilmiyeed looga dhalin karo oo kale waa sheeko loo sharxay referensi sax ah oo caddaynaya in sida ay wax u dhaceen literaturka qadiimiga kuma ay jirto. formulka Isaac Newton uu soo saarayna marka ay saynisyahanada dhammaantoodii ay bilaabeen in wax walba ay ku tijaabiyaan waxaa la arkay in natiijo sax ah formulkani uu bixinayo. xitaa buuraha culayska ay dhulka ku hayaan shay walba shayga kale culayska uu meel uu ku hayo ayaa la bilaabay in formulkani lagu cabiro. laba shay cadaadiska isku hayaanna inaad baarta waxaa laazim ku ah inaad isticmaasho bilowgii formulka Newton uu soo bandhigay labadaas shay oo la isku dhuftay masaafada u dhaxaysa labada shay oo laba jibaaran. xisaabyahan Faransiisa isaga oo formulkani Newton isticmaalaya ayaa waxa uu la kulmay problem uu fahmi waayey. maruu isaguna iskiisii meerayaasha oo dhan xawaaraha dhaqdhaqaaqoodii uu xisaabinayay waxa uu ku dhibtooday xisaabyahankanina marka meeraha Uranus la soo gaaray. formulkii Newton marka meerahani lagu fiiriyay nidaamkii iyo xawaaraha uu ku wareego qalad ayaa soo baxay. xisaabyahankani in badan ayuu ku noqnoqday si uu qaladkani uu ogaado. marka uu ka quustay in qalad mar walba uu soo baxayo waxa uu ku fikiray in laba un ay tahay in isaga xisaabaadka qaladaad inuu ku sameynayo ama in formulka asalka ah ee Newton in qalad uu ku jiro. adduunka oo dhanna isbedel ayaa ku dhacayo formulkii la wada rumaysnaa in mar kale qaladaad lagu arko. xisaabyahankani labadani ihtimaal si kastuu ugu fikiray in qalad ay yihiin ugu dambeyn way ka dhaadhacsami weysay. markaas ayuu ihtimaal cusub ugu fikiray xisaabyahanka sida wax aanan la daafirin in ay jiraan kuwaasoo canqaladaynayo in jawaabta saxda ah uu helo. waxaana la dhahay meero kale oo aanan muuqan ayaa macquul ah inuu jiro cadaadisna uu ku hayo Uranus, sidaasi ayaana macquul u ah in xisaabtay u qaldamayso. jooyig ahaanna marka loo fiiriyo waa mid sax ah oo macquul ah. teleskoobkii xilliga ayaana si wanaagsan waxaa la isku dayay hareeraha Uranus in si fiican loogu fiiriyo. waxaaba la arkay sida xisaabta ku caddeed meeraha Neptune. waxa uuna noqday meeraha Neptune meerihii ugu horey ee formul xisaabaad lagu ogaaday. maalintaasi kadib adduunka mar kale ayuu ogaaday in wax walba qaanuunkan cufisjiidadka in ay ku salaysan yihiin. innaga waxaa ina soo jeedanaya dhulka aynu saarannahay. dhulkana waxaa soo jeedanaya qoraxda si uusan dhulka qoraxda uusan u dhexgelin ama uusan ugu dhicin. xalka iyo nolosheenuba waxa ay noqotay in hareeraha qoraxda aynu ku wareegsano, waayo haddii dhulka uusan wanaagsan lahayn si toos ah qoraxda ayaana jiidan lahayd. dhul wax la dhahana iyo nolol ma aysan jir lahayn. in qoraxda hareeraheedii aynu ku wareegsanana waa wax nolosheenii ay ku jirto. halkii ilbiriqsi dhulka waxa uu jiraa masaafo 30 kilomitir ah. haddii 30 kilomitir wax ka yar dhulka uu jari lahaa sida 20 ama 15 kilomitir ah, kuleelka qoraxda dartiisa dhulka in lagu noolaado aad ay u adkaan lahayd. meeraha Mars marka qoraxda loo fiiriyo xoogaha adduunka maadaama isaguna qoraxda uu aad uga sii fog yahay waxuuna isaguna halkii ilbiriqsi uu jiraa masaafo 24 kilomitir. maadaama uu fog yahay intani meeraha Mars waa ay ku filan tahay. Mercury qoraxda maadaama afkeedii uu saaran yahay si daran ayuu isaga xawaaraha qoraxdu ugu wareegsadaa. intaa oo kaliya kuma koobna innaga marka qoraxda hareeraheedii aynu ku wareegsanayno si aynu qoraxda inoo soo jiidan qoraxda laftirkeeduna si iyaduna godadka black holeska aysan u laqin waxa ay ku jirtaa wareeg iyo dhaqdhaqaaq. koonka oo dhanna in sidani wax la xisaabin karo oo la fahmi karo uu u samaysan yahay. marka dowladaha reer galbeedka ay arkeen waxa ay bilaabeen daafuryo cusub oo isku xigxiga in ay sameeyaan. sababtoo ah koonka oo dhan fahamkii aynu ka haysanay waxaa bedelay formulkani basiidka ee gravitationka Newton. waxaana la arkay wax walba ee koonka inoo muuqda in wax kale ee ku xiga in shaygaasi uu ku tiirsan yahay. mekanismka koonku u shaqeey anatomigiisii ayaa la fahmay. adduunka oo dhanna intaa
kadib waxa uu bilaabay in koonka si fiican uu fahmo, heer xitaa la mooday, heer xitaa dadku ay moodeen in wax walba xal loo helay, kaliya ay dhiman yihiin details aad u yaryar. 1900 xilliyadii adduunka uu ku mashquulsanaa atoomka, Albert Einstein ayaa fikirkii la yaqaan mid ka duwan soo bandhigay. Einstein hadafkiisu ma uusan ahayn in Newton qaladaad uu ku tilmaamo, laakiin Einstein sida general relativity-giisii uu ku soo bandhigay waxa uu sheegay in waqtiga, maaska iyo space-kaba in xiriir saddexdoodii uu ka dhexeeyo. si kale oo la fahmi karo Einstein waxa uu leeyahay walxuhu sida ay space-ku ugu baahsan yihiin energy-goodii oo aan nidaamsanayn ayaa sabab wax uu u noqonayaa in waqtigii space-ka in uu leeco. Tusaale, qoraxda maanta marka la fiiriyo hareeraha qoraxda inta xidig ay halkaa ku wareegsanay suurtagal ma aha in la ogaado, sababtoo ah qoraxda iyo maaskeedii space-ka ayaa sabab waxay u yihiin in ay leecaan. Tanina si toos ah waxaa loogu arkay meeraha Mercury wareegiisii sanadka. Saynisyahan ayaa wuxuu isku dayay inuu xisaabiyo meerahani wareegiisii sanadka, laakiin sida uu waraaqada uu ku xisaabay hadba meesha uu ka filanay Mercury marka uu teleskoobka uu ku fiiriyay saynisyahankani Mercury kuma uusan arkayn halka uu ka filanayay. Marka uu in badan xisaabaadkani uu ku soo celceliyay waxa uu ku fikiray sidii hore oo kale waxaanan la ogeyn oo cadaadis ku hay in ay jiraan, laakiin Einstein marka uu imaaday waxaa la ogaaday in xaaladdu sida ay ka duwan tahay. Walxuhu mar walba ma haboono in gravitationkoodii la fiiriyo, waayo shayga culayskiisii shayga kale uu ku soo jiidanayo waqtigii space-kuna in lagu daro ayuu Einstein u arkay wadada natiijada saxda ah lagu gaari karo. waayo koonka dhexdiisa shay marka aad teleskoobka maanta ku fiiriso shaygaas iftiinkiisa ama energy-giisa oo aan nidaamsanayn isaga ayaa sababtiisa waxyaabaha kale ee ka dambeeya in aragoodii lagu dhibtoodo. Tanina waa leecitaanka space-ka iyo waqtiga ee general relativity-ga Albert Einstein, waana sababta marmarka qaarkood formulka Newton marka meerayaasha lagu fiiriyo qaladaad ay u soo baxayeen sababtoo ah lama ogeyn qawaacidda relativity-ga ee Albert Einstein. Saynisyahanaduna waqtiga space-ka maadaama aysan aqoon xilligaasi shayga wixii ka dambeeya inay arkaan space-ku ay ku dhibtoon jireen. Marka dunida si wanaagsan loo fahmay formulka Einstein waxaa ziyaaday aqoonta cirka aynu ka haysano iyo tiknoolajiyada bani aadamka.